إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan mahad ballaaran uga soo jeedinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo suuro geliyey inaan maanta idin soo horitaagno. marka labaad waxaan mahad gaara siinayaa maamulka dugsiga iyo macallimiintiisa oo runtii noo suuro geliyey inaan maanta fariinta aan wadno halkan idinku soo gudbino. mar saddexaad waxaan iyaguna ka maqnayn oon u mahadinayaa ardayda wiilaliyo gabdho leh ee sida wacan wanaagsan waqtigooda qaaliga ah noogu horay inayna dhageystaan. waxaan introduction idinka siin amaba aan idinku wargelin dhalinyartan maanta idinla joogta cidda ay yihiin. kollayba sidaad og tihiin in badan oo idinka mid ah ay garanayaan waa dhalinyar ku midowday inay bulshadooda wax u qabato, dadkooga wax u qabato. waana urur ka mida ururada wadaniga ee ka aasaasan gobolka awdal oo magaciisa la yidhaahdo SECO, kaasoo loo soo gaabiyey Somaliland Environment and Community Development Organization. si kale haddaan dhigo ururka wacyigelinta bulshada iyo deegaanka ee Somaliland. waxa isweydiin leh marka urur aad maqashaan waxyaabo fara badan baa maskaxdiina kusoo dhacaya oo ay ka mid tahay talow ururkani muxuu kaga duwan yahay ururadii hore ee iman jiray dugsiyada. ma urur ku soo qaatay fal amaba project ku soo qaatay inuu idinka wacyigeliyo waxaan maanta aan halkan u taagannahay. may ururkani waa urur bulshadiisa ugu taagan siduu ugu hagad ku yiri lahaa faa'iidooyinka iyo waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka taagan. ururkan SECO waa urur ka madax bannaan siyaasadda qabyaaladda iyo wax walba oo faa'iido ku raadisa. mashaariic kumaanaan soo qaadan inaanu idinka wacyigelina maanta wacyigelintan tahriibka inaanu idinka wacyigelino mashaariic kumaanaan soo qaadan waxaanu ku taagnayn dan ilaahay inaan bal idinkaga wacyigelino bal dhibka taagan ee gobolka ka jirta. ururka waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah horumarinta deegaanka. deegaankiisuu horumariyaa, wuxuu hore ugu mariyaa inuu u doodo jarista iyo waxyeelaynta dhirta. yacni waxaad maqashaan wax badanoo la leeyahay human rights watch, xuquuqda bini aadamnimo. annaguna waxaanu ka tarjumaynaa xuquuqda deegaanka ayaanu had iyo jeer bulshada ku baraarujinaa. waxa kaloonu bulshada iyada ka wacyigelinaa dhinaca horumarinta, hadday tahay dhinaca waxbarashada, hadday tahay wacyigelinta caadooyinka xunxun, ka wacyigelinta caadooyinka xunxun, waxaasoo dhan baanu ka wacyigelinaa. sababta aan u dooranay maanta dugsigan alasa waxa weeyaan waxaanu garanay dugsiyada ugu horeeya ee gobolka inuu ka tirsan yahay, annagoo barnaamij kan la mid ah balse ka duwan ka wadnay dugsiyada sare ee Ardaale iyo Ubaya. barnaamijkaas oo ah wacyigelinta HIV/AIDS oo dhawaan loo qasoomay. maantana waxaanu door bidnay inaan dugsiga alasa ka wacyigelino tahriibka oo aad runtii mootid inuu aad ugu soo badanayo bilahan u dambeysay goboladeenna awdal iyo salal. taan iska taagnay waa taas. ku dheeraan maayo, barnaamijku wuxuu leeyahay bari kollayda waanu wadnaa, kamana daalano sidaanu uga wacyigelin lahayn bulshadayada xumaan walba oo bulshada kusoo kuwalo. barnaamijku waxaa inoo sii daabixin doonaa oo balkhatarta iyo dhibaatooyinka uu tahriibku leeyahay inooga wacyigelin doona amaba inoo qaadaa dhigi doona walaalkeen. intaasaan kaga baxaya. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أقول لكم ولكن قولت عمر الله سيد قيمها لا ونوغو شاقين برنامج كان يحقبت كيسا
sida aan wacyigelinta uga wadno dugsiyada sare ee gobolka Awdal waxaan kusoo dhaweynayaa barnaamijka si uu barigiisa noogu gudagalo walaalkeen xasan jaamac kaahin oo noo qeybinayna barnaamijka xasan soo dhawo. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsiga sare ee Alaqsa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام markaan ka gudbo xaqiiqatan saaka aniga farxad gaar ay tahay inaan imaado dugsigii aan ka bilaabo waxbarashada yarantaydii stage-kan aan jooga maanta oon xasuuso anoo yarin aan ku ciyaari jiray kulay martuu ma yihi dugsiga anu maanta laakiin waxaan dareemayaa inaan kusoo noqday qoyskaygii oo muddo badan ka maqnaa mar labaad kusoo noqday aad baan ugu faraxsanahay waana dugsi ka mid a noloshayda qayb ka mid a soo qaatay 8 sano oo dhan aan dhiganayay. markaan taa ka imaado waxaan u gudageli doonaa barnaamijka saaka halkan aan u nimidnay oo ah tahriibka. horta tahriib muxuu yahay? tahriibka xaqiiqatan waxaa la yidhaahdaa waa socdaal suuq madow ah isla markaana ay dadku iskaga gudbaan wadamo iyo qaarada aynan u dhalan. tahriibka dad Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inuu yahay ka labaad ee dhimashada ugu badan dadka Soomaaliyeed ugu wacan marka dagaalada gobolada koonfureed ka jira laga yimaado. gobolkeennana amaba dalkeena Soomaaliland waxaan oran karnaa waa ka ugu horeeya dhimashada ugu badan dhalinyarada ku keena. haddaba waxaan naga siin doonaa bal overview adduunka tahriibka waqtiguu bilaabmay waxyaabaha keena tahriibka qofka ku keeni kara dhibaatooyinka uu la dirsi karo ayaan bal overview naga siin doonaa. haddaba adduunyada waxay yidhaahdaan dadka illegal immigrationkee si officiala dowladaha uga diiwaankooga gashan waxaa lagu qiyaasaa 214 million people 214 milyan kuwaasoo adduunyada ka noqonaya marka la yidhaahdo 4% wax ku dhow dadka adduunyada ku nool waa illegal oo wadamaday u dhasheen ma joogaan. haddaba tiradaas aan sheegnay oo inta badan aan ahayn midaan afka ka sheegayno oo ku soo baxday 2010 International Organization of Migration oo IOM la yiraahdo wakaalad la yiraahdo ay qortay ayaa waxay ku sheegtay dadkaas inay inta gaarsiin waliba ayna ku jirin dadka si official dawladuhu og yihiin oo ay leeyihiin dadka qaarkood haddii kuwa lagu daro oo ay ka badnaanaysa laba ilaa saddex laab inay noqoto laga yaabaa. 2.5 ilaa 3.2 milyan dadka illegalka ah inta badan waa illegal dadka immigration inta marka la yiraahdo oo ka noqonaysa 10% ilaa 15% dadkaan soo sheegnay oo totalka aan soo sheegnay 2.4 milyan. haddaba 2008 waxay samaysay Central for Immigration Studies mid la yiraahdo Mareykanka ku taalo CIS la yiraahdo warbixin ay ku sheegtay in 11 milyan ay ku nool yihiin dadka Mareykanka dadkaan soo sheegnay. warbixino kaloon soo ururinay waxaa sheegaysaa ilaa 7 ilaa 20 milyan yihiin kaasoo ka dhigaysa kala haaf dadka adduunyada tahriibayaasha inay joogaan dadka Mareykanka. haddaba markaan ka yimaado overviewgaas waxaan u geli doonaa bal maxaa ku keeni kara qofku inuu wadankiisa hooyo oo jeclaa ka tago oo wadan shisheeye oo tago isagoo naftiisa ku biimeemaya khataro badan oo ogyahay dad badan in naftooda ay ku waayeen. qodobka ugu horeeyeen aan adduunyada markaan idhaahno si guud waxaa qofku ku keena inuu dhaqaalo xumo iyo shaqo la'aan. haddaba si ay soo sheegtay CIS dadka tahriiba waxaa ku kalifay inay wadankooda ka tagaan. waad ogtihiin dadka inta badan adduunyada ka tahriiba waxay ku badan yihiin wadamada dhaqaalooga hooseeyo ee third world la yiraahdo ayay ka tagaan waxayna tagaan wadamada warshadaha leh. haddaba markay dalalkaa tagaan waxay sheegtay shirkadani in dadkaasi ayna qaban shaqooyinka la yiraahdo white collar jobska ama shaqada heerarka sare ah ee inta badan aqoon sare loo baahan yahay. dadka dhalinyarada tahriibaana waa dad inta badan aanan xirfad aanan lahayn taas marka waxay ku kaliftaa inay qabsaan bottom type jobs waxay u bixiyeen ama under class jobs wax la yiraahdo. waa shaqooyinka xaqiiqatan waa guri meerid beero gooyn suuli nadiifin iyo maxay lahayn hoteeladan miisaska masaxan taas oo waliba waxay leeyihiin dadkaas waxay qaataan minimum wage qofka loogu talagalay caadiga inuu qaato wax ka hooseeya.
inta badanna shaqooyinkaas waxa weeyaan shaqooyin dadka u dhashay aynan rabin oo iska weyneysiyaan marka shaqooyinkaasay qabtaan marka duruufaha dhaqaale darre ee dalka ka jira iyo shaqo la'aanta ayaa ku kadeedaya qofku inuu dalkiisa ka tago oo dalka shaqeeyo waa qodobka koowaad qodobka labaad oo ah qofka amaba saboolnimada oo ah mid adduunyada aad u saameysay isla markaana ay yiraahdaan minimum goaliska wax ku ugu horeeya adduunyadu 2015 in laga takhaluso loogu talagalay laakiin xaqiiqatan sidii u socoto aanan laga takhalusi karin ayaa waxay ku badan yihiin saboolnimada wadamadan sub-saxaaranka la yidhaahdo ee nukula ku jirno ee saxaaraha ka hooseeya markaa dadka wadamadaas ku nool inta badan saboolnimo baasan baa jirta qofku markuu dareemo khaasatan dhalinyartu dhibaatada saboolnimada haysta qoyskiisii oo isaga sugaya wuxuu markaa au ku dhiiranayaa inuu waddankiisa ka tago isla markaa dadkaas waxay raadiyaan saan soo ogaanay inay dad qaraabe ay yihiin oo dibadda jooga ay ka raadiyaan dhaqaale ay ku jid maraan kuwaasoo inta badan ay jid dheer oo ka bilaabmaya Djibouti, Eritrea ilaa Sudan to Libya, Mediterranean Sea ilaa Europe saa ay u galaan isla markaana dhibaatooyin badan ay kala gudboonaadaan dadka qaarkoodna lacagtuba intay dhexda kaga goodo dhibaatooyin badan loo geysto waa qodobka labaad qodobka saddexaad ee ku keeni kara qofku in uu tahriibo adduunyada waa waxa la yiraahdo overpopulation inkastoo ina xaggeena ka jirin laakiin wadamo badan oo caalamka ka jirta waa dadku inay isku farabataan haddaba siday United Nations ku sheegtay ama jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa 1900 markuu adduunyadu maraysay dadka adduunyada tiradoodu waxay haayeen 1.6 billion hadda oo 2012 yaan marayno dadka adduunyadu waxay madaxa ka jireen 7 billion waad arkaysaa farqiga intuu dadku koreen waxay haddaba UN tu qiyaastay inay dadku kordhayaan speed ah 1.4% sanadkiiba taasoo ay ku qiyaaseen 75 million inay sanadkiiba dadka bini'aadamka adduunyada ku nool ku biirto wakaalada kala la yiraahdo US Census Bureau waxay qiyaastay in 2015 dadka adduunku gaari doonaan 9.4 billion waa qiyaas aad u fara badan taas oo ka dhigaysa qiyaasta in 1 bilyan oo qof ku biiraan 12 sanada adduunyada dadka marka taas waxay culays ku kordhinaysaa dadkii adduunyada ku noolaa taasoo keeni karta waxay leeyihiin xuquuq badan baa adduunyada ku imanayeen waxay imanayeen shaqo la'aan way dadku is xidhiidhinayaan waxay imanayeen in dadka jaamacadaha ka soo baxay ee aqoon-yahanadii ay waayaan shaqooyin u qalma isla markaana ay door bidaan inay tagaan dalalka shisheeye ee warshadaha leh kuwaasoo rajaynayaan inta badan waa dadka wadamada reer galbeedka ma koraan dadku waayo istaagnan baa lagu qiyaasaa ama 1% waxa ay baa ku biiraan marka wadamadaas ay ugu shaqo tagaan oo dowladda raadsan ay u xiriiraan baa la leeyahay waa qodobka afraad waxaanu oran karnaa waxa weeyaan wax la yiraahdo family reunification amaba qofku inuu rabo qoyskiisii oo tagay oo reeri wadamadaas inuu ku biiray isagna kaas dalkeena baa ka dhacda inta badan laakiin siyaasada ku saabsan family reunification waa xalaal qofku waddanka joogno oo codsan karaa in dadkooda loo soo qaado laakiin waxaa dhacda in maadaama ay kooban yihiin siyaasada qofka loo ogol yahay ay dhacdo in qofkii uu ka buuxsamo liiskii deetana uu joogi kari waayo dadkiisii uu jeclaa familigiisii uu ka horeeya inuu joogi kari waayo isla markaana ku qiimeeyo naftiisa dhibaatooyinkaas aan soo sheegnay isagoo raba inuu la midoobo qoyskiisa oo wadamada joogay waa qodobka afraad qodobka shanaad oo inta badan caalamka aad ugu fara badan oo caana waxa la yiraahdaa asylum seekers baa la yiraahdaa waa dad inta badan nabadgelyo siyaasadeed raadinaya dadkaas oo ka soo baxsan kara dagaalo sokeeye caburi dalkooda lagu hayo xorriyad la'aan xagga diinta ama dhaqanka faraxumayn loo geystay takorid iyo waxaan yiraahdaan genocide ama xasuuqa la yiraahdo ama waxay ka tegi karaan siyaasad arrimo siyaasadeed darteed iyagoo waddankooda ay jiraan dictatornimo waxyaabo saasa way ka baxsanayaan wadamo shisheeye tagayaan haddaba dadka asylum seekerska la yiraahdo aad bay ugu farbadan yihiin adduunyada marka laga hadlo inkastoo dalkeena ayna ku badnayn inkastoo dadka dagaalada ka baxsaday ay ku badan yihiin wadamo koonfurta Soomaaliya laakiin waxay dadkaas ka tagaan inta badan wadamada Afrika oo dabcan Soomaaliya ku jirto Colombia iyo waddanka la yiraahdo El Salvador haddaba waxay sheegeen US Department of Homeland Security wakaalada la yiraahdo waxa sheegtay in 10 qof ee waddanka Colombia u dhashayba hal qof oo dibadda ku nool yahay taas oo ka dhigaysa waddanka afraad ee dalka Mareykanka laga soo galo ee dadka ugu badan ka joogaan
haddaba waad dareemi kartaa inta qodobaan soo sheegnay qaar wayna khuseeyaan oo Soomaalidu way khuseysaa qaarna si guud bay adduunyada u taabanaysaa haddaba dadkaasi dhibahalisan nuuciya ayaa la soo gudboonaan kara markay ku jiraan safarkaas ay ku jiraan badan ay ku loodeen naftoodii haddaba intaasoo dhan innagoo soo sheegnay dhibaatooyinka haddaba methodska ay dadku adeegsadaan ama hababka ay waddamada ku galaan shisheeye ayaa iyaguna waxaan kusoo koobay 2 qodob oo soo gaagaabanaya hadduu ilaahay ka dhigo waxa weeyaan dadku waxay sameeyaan wax border crossing la yidhaahdo amaba xuduudda iskaga gudbaan waata ugu badan inta badan ay sameeyaan markay waddamada galayaan taas waxay noqon kartaa inuu ban maro qofku inuu berri maro isagoo xuduudda ka gudbaya meelaha ugu badanna waa xuduudda Maraykanka iyo u dhaxaysa Mexico iyo saan soo sheegnay Mediterranean Sea iyo waxa kaloo soo raacda meel la yiraahdo Muna Canal oo u dhaxeeya Dominican Republic iyo Puerto Rico haddaba dhibaatooyinka ugu badan bay dadkaasi mutaan maadaama ay dariiqa ku socdaan aw yahay mid illegal ama sharci aan ahayn dadkaas waxaa lagu qaadaa tankiyo tankis baa lagu qaadaa danankooga la geliyaa isla markaana waxay u dhintaan caburaad oo qof lagu cabiri kartaa qof lagu tareeyey tankii dhexdiis iyadoo si dhuumasada loo gelinayo ama gaariyaal baa lagu qaadaa iyadoo lagu xidhayo maxaadaanay raashina kale sideedii laga dhigayo ama waxaa lagu qaadaa doonyo aad taag daran isla markaana xamili karin hirarka badaha ka dhaca iyo duufaanada taasoo keenta inay qarqoomaan dadku amaba waxay u dhiman karaan qofku dehydration amaba fuuqbax iyaga oo socodka dheer ee saxaraha u marayo darteed biyo la'aan ku timaada saan ogaanay qaar badan oo kaydooda caddi la ogaaday dada oo tahriibiyaala dehydration bay u dhintaan inta badan ama fuuqbax haddaba 1998 ilaa 2004 Kenya waxaa la qiyaasay in Maraykanka iyo Canada iyo Mexico inta u dhaxaysa ay ku dhinteen 1904 qof ruudaas kaliya haddaba labaha baa jiro oo dadka lagu habkan isxambaarka la yiraahdo ama human smuggling oo inta badan la adeegsado dad mukhallasiina oo lacagta qaata isla markaana qofka waddanka geliya inta badan laakiin habka qofka marka waddanka la geliyo waa la free baa laga dhigaa sababtoo ah lacag baa laga qaatay orey markaa taasi way riskiga tahay laakiin tii aan soo sheegnay human trafficking inta badan waa ta ugu daran dhibka ugu badan dadka waayo qofka waa la mar hadhow waxa lagu sameeynayaa in la afduubo la geeyo waddankii salaha baa soo qaadano waddanka Burma oo kale dad badan baa ka gala Thailand imika waxa la soo qaaday ka soo qaaday gabadha ee Burmana Thailand baa la geeyay uma tii ka tumacala inay booliska ku dacwayso waayo marka hore illegal bedel ku joogtay wax ka baqaysaa in la tarxiilo amaba boolisku waa uga faa'iideystaan taas oo ay farxumeeyaan iyadoo loo adeegsanay waddanka inay ku joogto sharci darro marka dhibaatooyin saas u badan baa dadka haysay lagu qaado qaabkan u yimid trafficking qodobka ugu dambeeya ee dadka loo geliyo waddanka madax ku galaan aynu ku soo daraan waxa la yiraahdaa waxa weeyaan overstaying visa ama qofku intuu waddanka si xalaal ku soo galo isla markaana visa u dheeraysto amaba marka dambe aw dalka lagu soo gudbo haddaba adduunyada waa soo dhameeyey dhibaatooyinka waxyaabaha keeni kara methodska ay dadku ku galaan waddamada haddaba Soomaalida aan ku soo koobayo waxay ka bilaabatay ama Soomaaliland waxay sheegaan 1970-aadkii abaaro baan dalka markay ka dhaceen isla markaana dad badan ay u kaceen xagga khaliishka inta badan xaafado badan oo khaliishka degan hadda ay yihiin dadkii berigeed tagay dalkaas laakiin wuxuu aad u caan noqday 1991 markii dalka ay ka dhaceen dagaalada sokeeye isla markaana ay noqotay mid aanan qarsoodiyahayn dadku sida ay u baxaan inta badan dadka baxaa waxay u badan yihiin dadaalooda soddonka yar tahay oo ah awoodii dalka ee laga rabay inay horumarka dalka gaarsiiso dad yar oo aad u tiro yar ayaa markay go'aankaas maskaxdooda galo ka noqdo go'aankooga oo dib uga laabto saan ogaanay laakiin waxaan aad noogu sheegay dadkaasi inay dareemaan welwel marka ay baxayaan ay dalkooda ka tagayaan meelaha ay dadkaasi Soomaalidu maraana waxa ugu badan Liibiya oo ay tagaan oo dugtiin waddanka Yemen oo iyaga la shaqooga tagaan iyo South Africa oo inta badan dad badan oo dariiqa maray warkooga lahayn haddaba su'aashu waxay tahay ay dad badan isweydiinayaan qofka baxaya tahriibaya lacag u haystaa dabcan
isagoo lacagta haysta sababta ku kaliftay inuu dalka ka baxo maadaama aan ognahay inay dadka wada tahriibo dhan ayna dan yarahayn